habeen wanaagsan kuna soo dhawaada wararka telefishinka BBC qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxa kamid ah booliska ayaa baaraya wixii keenay dil wadareedkii ugu xumaa taariikhda Mareykanka iyadoo mar kale la eegayo qaynuunka qoryaha Mareykanka hay'adaha gargaarka oo ka digaya in Soomaaliya ay ka dhacdo abaar iyo macluul warbixin ayaynu idinkaga haynaa ab cusub oo loogu talagalay ragga xaasaska badan qaba oo Indoneesiyana laga hirgeliyay waxaynu ku bilaabanaynaa dalka Mareykanka halkaasi oo boolisku ay isku dayayaan inay ogaadaan sababta ninkii hubaysnaa rasaastu ugu furay dad ka qayb galayay bandhig faneed ka dhacay Las Vegas oo ay ku dilay 59 ruux 527 kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha Mareykankana waxa ay sheegayaan in Stephen Paddock uu haystay ugu yaraan 42 qori iyo rasaas kumanaan ah madaxweyne Trump ayaa soo jeediyay in shuruucda qoryaha ay tahay in mar kale laga hadlo laakiin qaar badan oo Mareykan ah ayaa qaba in ay tahay xilligii dib loo eegi lahaa Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramaya waa argagax dad badan oo aan waxba galabsan nin dableeyhi ku laayay Mareykanka waxa mar kale ka dagila wixii ka dhacay halkan Las Vegas waxay ku biiri doontaa liiska goobaha aan ka go'in qulubta Mareykanka horay club ku yaala Orlando ayaa lagu dilay 49 qof jaamacadda farsamada ee Virginia ayaa iyana 32 qof lagu dilay qofna ma hilmaami doono iskuulkii caruurta ee Sandy Hook ee Connecticut halkaasi oo 20 caruur iyo 5 macallimiintoodii lagu toogtay hadda dadku waxay isweydiinayaan ma tahay in la adkeeyo qoryaha waxa kordhaya waa tirada dadka qoryaha lagu dilay waxay kor uga kacday 12,000 iyo bar 2014 in ka badan 15,000 sanadkii hore waxa lagu qiyaasaa in Mareykanka ay yaaleen gudihiisa 300 milyan oo qori Nevada waxay leedahay shuruucda ugu fudud ee qoryaha ee dalka uma baahnid ogolaansho inaad qori gadato ama aad yeelatid mana laga yaabo in isbedel uu ku dhaco inta Trump uu talinayo waxaan idin sheegayaa aniga oo ah madaxweynihiinii in aanay marnaba dhici doonin oo aanay weligeed dhici doonin in lagu xadgudbo xaqiina ah inaad hub haysataan laakiinse taasi ma joojinayso isbedel ninka qabay gabadhii Congress-ka ku jirtay ee dilka ka badbaaday Gabrielle Giffords 6 sano ka hor ayaa sheegaya in ficil loo baahan yahay maalin walba si macno darro ah ayaa dadka guryaha dhexdooda loogu dilaa maalin walba carruur ayaa waalidkood ku toogta xabad maalin walba carruur ayaa carruur xabad ku toogata iyadoo taasu jirto haddana baarlamaanku ilaa iyo hadda waxba kamay qaban waxa la yaab leh in marka tani oo kale ay dhacdo qoryuhu ay kor u kacaan xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ayaa sheegtay in aan la gaarin xilli laga hadlo balse dadka qaarkii mowqifkoodii isbedelay nin gitaarka tuma oo habeenkii masraxa taagnaa ayaa sheegay in ay jiraan qoryoolay wanaagsan balse ay tahay in qoryaha la xakameeyo hadda faahfaahin dheeraad ah ku saabsan warbixintan Las Vegas waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaaliya adigoo ka galaya mobilkaaga in ka badan kala bar dadka Soomaaliya ayaa cunto u baahan qaramada midoobay waxay sheegaysaa in caruur badan ay khatar ugu jiraan in ay macluul u dhintaan hay'adaha gargaarkana waxay ka digayaan in dalka uu wajahayo abaar daran qaramada midoobay waxay sidoo kale sheegtay maanta 388 kun oo caruur ah inay haysato nafaqo darro tiradaasi waxaana kamid ah caruur gaaraysa 87 kun oo xaaladoodu ay aad u liidato Soobe Maxamed Badqas ayaa warbixintan Nairobi nooga soo dirtay cirka roob ayaa ku jira balse dhulku waa qalalan yahay dadka halkan ku dhaqan waxa ay ku tiirsanayeen xoolaha balse abaartii ayay ku leedeen meel walbana waxa yaala baqtiga xoolaha abaartan ayaa saameysay dadka ugu nugul bulshada caruur badan oo ka yar da'da 5 sano ayay haysaa nafaqo darro balse kuwa ku sugan xaruntan waa ay ka nasiib badan yihiin malaayiinta ay hayso cunno iyo biyo la'aanta ee qarka u saaran dhimashada abaartii soo marnay lagama sheekayn karo lagama gudbi karo muddo dheer bayna haysatay haday xoolo tahay iyo haday biyo tahay iyo maxaa haday baad haybe waa leefto xaruntan waxa lagu miisaamayaa caruurta
qaar badan oo ku nool bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya way ku adag tahay in ay helaan xarumahan oo kale. xaaladda waddanka aad bay u liidataa dadka ku nool waddanka muxuu ahaay dhibaato badan baa haysataa dadkii way qaxeen meelihii ay ku noolaayeen bay ka qaxeen hadday ahaayeen beeraley hadday ahaayeen xoolo dhaqata waxay tageen magaalooyinkana nolol fiican kuma haystaan had iyo jeer waxay isku dayaan dadka inay tagaan meelaha ay ka heli karaan mucaawino bini'aadanimo taasna waxay keentay inay dadkii degaan xaafada isku raran ah nadaafadooda iyo caafimaadkooda iyo sixadooda ay wanaagsadeen. halkan waxa la isugu yimid in looga hadlo xaaladda abaarta ee dalka Soomaaliya ka taagan iyadoo la sheegaya in ay aad haatan uga sii dartay iyo waliba sidii xal loogu heli lahaa. ma aha oo kaliya Soomaaliya meesha ay abaaraha ay ka jiraan balse waxa jira dalal badan oo ka tirsan Geeska Afrika oo sida oo kale abaarahu ay u saameeyeen. dawladda Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in ay abaartan soo noqotay wax ka qabtaan balse ma fududa. iyo dibad guda iyo banaan in xoog la isugu geeyo annagoo kaashanayna cid walba nagu kaalmaynaysa inaan ka dhigan ahmiyad weyn sida dadkeena baahidooda loo dabooli lahaa oo dadka Soomaaliyeedna inayna abaarahan soo noqonaya in aan ka hortagno. hay-adaha gargaarka iyo dawladda ayaa beesha caalamka ka codsanaya deeq si wax looga qabto xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan dalka Soomaaliya. Suhayba Maxamed Badqas, BBC, Nairobi. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. walxa qarxo oo loo malaynayo inay bamboon yihiin ayaa lagu tuuray guryaha laba xildhibaan oo Uganda caan ka ah kuwaasi oo ka hadlay qorshooyin meesha looga saarayo xadka da'da madaxweynenimada. Bobby Wine oo ahaa heesaha xildhibaan noqday iyo Alan Iswanyana ayaa sheegay in xalay guryahoodii bambooyin lagu tuuray booliskana way baarayaan arrintaasi. baarayaasha Australia ayaa soo saaray warbixinta diyaaradii Malaysia MH370 ee la la'aa waxay sheegeen inaan la qaadan karin in weli diyaaradii aan la helin. diyaaradda ayaa la waayay 3 sanadood ka hor iyadoo ka duushay Kuala Lumpur kuna sii jeeday Beijing waxaana saarnaa 239 ruux. kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa u soo baxay wadooyinka Barcelona ee waddanka Spain waxa ayna ka cabanayeen sidii ay booliska ula dhaqmeen dadka aftidii lagu muransanaa ee axadii ee madaxbanaanida Catalonia. dibadbaxyada ayaa ka dhacay Catalonia oo dhan waxayna fariisiyeen magaalada ugu weyn. dhowr kooxood ayaana hor istaagay xarumaha xisbiga talada haya. colaadii dhawaan ka dhacday Itoobiya ee Oromada iyo Soomaalida dhaxmartay ayaa saameysay ganacsiga iyo isu socodka dadka. haddaba waa sidee xaaladda dhabta ah ee dadka Oromada ee ku nool magaalada Hargeysa? warbixin arrintaasi ku saabsanna waxa ay noo soo diyaariyay oo soo diray wariyaha telefishinka BBC-da ee Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad. xaafadaha magaalada Hargeysa oo aanu dhex marnay ayaanu ku aragnay iyagoo siyaabo kala duwan uga shaqaysanaya dadka Oromada ah oo qaarkood ay tuugsadaan qaarna ay haystaan meherado iyagu ay iska leeyihiin oo laga cunteeyo iyo dhalinyarada oo baalashka iyo baabuur meydhista nolol maalmeedkooda kala soo baxa waxaanu kala sheekaysanay xaaladooda ammaankeyga waxba nabadgelyaan ku shaqaystaa cidina waxbay ma yeesho shacabkaana waan ka dhex shaqaystaa shacabkaana waan u shaqeeyaa degmada halkaan ugu badnaa waa iska shaqaysanaysaa tolkiinba wax laayoo waanu maqlaynaba taasoo intii firdhatay tegtayna way tegtay intii kalena way iska shaqaysanaysaa markii dambena waxaa la yidhi bade annagaba nagu dhex nooshaa magan baad noo tiinay nima taabanina iska shaqaysta. waxaan ku suganahay xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa oo ka mid ah goobaha dadka Oromada ay ku badan yihiin. waxa ay ku leeyihiin dadka Oromada halkan meherado kala duwan. goobtanina waa mid ka mid ah meheradaha ay leeyihiin oo dhinacna ka ah muqaaxi lagu qaylo laga shaaheeyo dhanna laga cunteeyo oo macmiil ay u yihiin Soomaaliya iyo Oromaba. meherada waa meheradeen Soomaaliya iyo Oromaba gabigoogiba way naga ibsanayaan waan ku ibsanaynaa caadi waan wada joognaa iminka kalaalaasayo yaro isha dhow dhaadena waliba dadka xaafadana caawiyaba naga eliyayaalka. maalmihii ay cusbeed colaadda Oromada iyo Soomaalida ku dhaxmartay gudaha Itoobiya ayaa cabsi weyn ay gashay Oromada Hargeysa ku nool waxaana jirta in qaar badan ay maalmahaasi dalka isaga baxeen. iminkaase waxaa muuqata inay xaaladdu ka duwan tahay si bilaa cabsi ahna ay ugu dhex barjeenayaan Oromadu bartamaha suuqyada magaalada Hargeysa iyagoo oo aan cabsi qabin. Sadiiq Maxamed Burmad, BBC, Hargeysa. hab cusub oo ah internetka hab loogu talagalay oo ragga dumarka badan qaba ayaa toddobaadkani Indonesia laga hirgeliyay. inkastoo uu buuq ka dhashay
haddana waxaa loogu talagalay inay isticmaalaan ragga dumarka badan guursada ururada haweenka ayaa ka warwarsan in nidaamkan uu horseedo in rag badan ay ooda jabsadaan cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir ayaa ka warramaya ninkani ma aha sida rag badan oo internetka wax ka shukaansada oo aynu naqaano laakiinse isagu waxaaba uu leeyahay laba xaas haddaba sida aad u dhaqayso ee aad u maaraynayso laba xaas ayaa iyada laftigeedu hawl ah waxaana imka soo baxay nidaam cusub oo aab ah oo la yidhaahdo ayablogamy waxaannu wadaagnaa sida loo xallin karo dhibaatooyinka ka yimaada xaasaska badan marka imika anigu waxaan bartay sida laba dumara la isugu hanan karo waxaa kaloo uu siiyaa ragga iyaguna xaasaska ka badan leh talooyin la isweydaarsanayo sida ay wax yihiin ninkii sameeyey nidaamkan ayablogamy ayaa isagu sheegay in suuqa aabkan uu yahay mid xaamiya oo ay rag badan isticmaalayaan rag badan ayaa rabaa inay xaasas badan yeeshaan markay galaan qolalka internetka ee shukaansigana kama helaan fursaddaasi laakiin dadka ka soo hor jeeda ayaa sheegaya in habkan internetkiihii ee dumarka badan lagu guursanayaa uu haweenka u daran yahay iyadoo awalba ay indonesiya ku badnayd ragga naagaha badan qaba ayaa iminka nidaamka internetkuna ugu sii daraya waxayna dumarka ku qasbaysaa inay aqbalaan sharciyaqaanada ayaa sheegay inaanay haynun in layska guursado laakiinse marka hore la oggolaado islamarkaana xaaskaagu ay aqbasho inaad labaysato iyo inaad saddexaysataba markana ciyaartooyga Gerard Piqué oo ah difaaca Barcelona taageersanna madax banaanida Catalonia ayay ku qayliyeen taageerayaasha Spain xilli uu tababar ku jiray taageerayaasha ayaa ku qayliyay isaga bax difaaca axadii ayuuna sheegay inuu diyaar u yahay in uu qaranka isaga baxo haddii joogistiisu ay wax dhimayso tababarka ayay ugu diyaar garoobayeen kulanka ciyaaraha adduunka ay la yeelanayaan Albania weeraryahanka Chelsea Alvaro Morata ayaa ciyaaraha ka maqnaan doona in ka badan hal bil kadib markii uu dhaawacmay ciyaartii Sabtigi ee Manchester City ciyaartooygan oo kooxda Real Madrid lagaga soo iibsaday 80 milyan ayaa ahaa dhaliyaha ugu sareeya kooxda xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 7 gool sidoo kale ciyaaraha toddobaadkan ee dhacaya ee loogu soo baxayo koobka adduunka ayuusan ka qayb galaynin markana taalla cusub ayaa lagu soo bandhigay magaalada Moscow taasi oo lagu maamuusayo ninkii soo saaray qoriga adduunka ugu caansan waa Mikhail Kalashnikov Qalib Xasan Baarud ayaa warbixintan inooga waramaya ma dambiila mise waa ikhtiraacyo wanaagsan waxay ku xiran tahay sida aad u aragtid astaanta nashqadaynta Mikhail Kalashnikov qoriga AK-47 ayaa waxa uu ka mid yahay hubka ugu caansan adduunka BBC-da ayaa la kulantay Kalashnikov 93 isaga oo qoriga gacmaha ku haya sidii oday raxmad badan oo daryeelaya ilmo yar oo uu u yahay qaar ka mid ah khubarada hubka ayaa sheegay in AK-47ka lagu dilay dadka ugu badan marka la barbar dhigo hubka kale ee casriga ah laakiin Mikhail Kalashnikov ayaa diiday inuu aqbalo mas'uuliyadda dadka lagu laayay qorigan wuxuu yidhi laguma eedayn karo soo saarayaasha hubka dagaalka iyo dhiigga ay sababaan Kalashnikov ayaa ku adkaystay in ujeedka loo sameeyey qoriga aakaha ay ahayd sidii loogu difaaci lahaa dalkiisii midowga Soofiyeedka oo markaa ku jiray dagaalkii labaad ee dunida waxa uu sidoo kale qiray inuu ka murugaysan yahay kana ilmeeyo dadka tirada badan ee lagu dilay qoriga uu ku magacaaban yahay markana ugu dambeyntii xerada xayawaanada Denver ee Mareykanka waxa soo gaaray xayawaan hor leh xayawaanadan oo ah baanda lab ah ayaa ilaa markii ay dhasheen bishii Agost si gaar ah ayaa loo hayay waxaana la sheegayaa in ay fiican yihiin oo uu miisaan ku kordhay wararkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan bogga bbcsomali.com inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa waadna ku mahadsantihiin daawashadiina intaan kulmayno waxaan idin leenahay nabad gelyo